بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات يا أمد الإسلام كبا وحان لهاي كل عام وأنتم بخير. عيد وناكسن ميلو البؤة جوكتين كذا يدبد بقى إلهي أعماش وناكسن اللي قد حجري بريهان أنا أقبله ما أنت ومالين وين ومالين عيدة ومالمها إلهي أكتساءاتك أبوين ومالنتي حج الأكبر كإلهي أكتل معمي قرآن كان مفسرين انتوا ضبطنا كفسرين آيات أم قولك إلهي والفجر وليال عشر طبعا كاس مع الموت طبعا كان مع الموت أوجه رسد الحج أيام مفسرين انت أوجه بدن أي رهدان فجر كانوا وحلقوا فسرين ما ننتهن أكله وما لندتك حجاج تأه أي محيئها تو طوافك إيو لقحتورك إيو أي سمينا يعني تحللك أما تمهي إني mataqaana gaabiyaan ama xiirtaan marka dadka aan joogin xajka ama aan acmaashaas ku jirin waxyaabaha laga rabo waxa ugu weyn takbiirta iyo mataqaana isbooqashada iyo farxadda iyo in mataqaana wixii la heli karo qofkii awooda inuu wax qalo waxna reerkiisa oo siiyo waxna oo dadka masaakiinta aan haysan oo siiyo marka maanta waa maalin farxadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa farxad daa'ima inuu ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta uu siiyo taasoo aan ula jeedno inay helaan nabad iyo isku duubni iyo taasoo keenaysa horumar dhinac walba leh ummadda Soomaaliyeed waxay soo martay maraaxil kala duwan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu nooga dhigo maalin aan ku halmaano maalmihii xanuunka badnaa ee aan soo marnay oo aan higsano horumar weyn iyo midnimo iyo sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ee soo laabta waxaan rabaa nuqtooyin muhiim ah aan isleeyahay waa muhiim inaan sheego oo ay ka mid tahay in dhikriga Ilaahay oo ugu horeeyo takbiirta la badiyo maxaa yeelay ciidan waa ciid islaami ah marka waa inay la timaadaa dhaqankii ay lahayd ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سوى لقى سو جاري فرحدة ولا أقولها لكن فرحدة شرعية على رباطتكم إنه أكادان والدينته يو أصحابته يو قرابة إن لبغض على الروا ضدكوا بريهان وحياد وجو مشغول سيهن محنكوا إلى تلفون هذا هي تكنولوجيا ده وحلقة على وقف وجود إسلا جوكت إنه سنسلها لين ويكون مشغول على مركز تكنولوجيا لو قف إذا استقرابة يو أهلك أحبة إن لو حريريو oo ay noqdaan wax u faa'iideeya xiriirka dadka u dhaxeeya aysan noqonin wax dadka kala mashquuliya sida hadda ay tahay waxaan rabaa inaan uga gudbo nuqdo kale oo muhiim ah caafimaadku islaamka aad u muhiim u yahay sida aan hore u soo sheegnaba cudurkan COVID-19 waa cudur khatar ah dad badan u dhintay dad badan u dhibtooday dhaqaale fara badanna waa ku baxaa qofku hadduu xanuunsado xataa gurigiisa joogo oo soo bixi waayo wuxuu ka mashquula hawlo muhiim ah oo guda lahay oo ay kamid yihiin cibaadaadkii iyo amalkii kale waajibaadka saaray guriga ka saaray qaranka ka saaray oo guto marka dadku inay is ilaaliyaan waxaan isleenahay waa waajib in lagu baraarujiyo arrintaasna waa muhiim marka mar kale waxaan leenahay cudurku la waajira adduunka kama dhamaanin Soomaaliya adduunka ka mid tahay ما هي أنا هذا إحصائيات رسمية أو ذلك لقى صاري أما اللي هو عدم هذا ما أنت صول أو مرايا لكن محمد أجنها والإنه يجرى مركز كسومالي المالي جوجان بقى وحنكبورنا إني تلوين كعافماتك دقاتيرتو يسوي جديين إني قاتان وأنا أرين دين أرين ليسكلي هاي معها هراي وحبضنا عصور شيخنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم cudurkan cudur lamida oo la yiraahdo cudurka maxaan ku iraahdaa daacuunka aan u naqaano waxa uu nafaray meeshii uu ku dhaco qofkii jooga inuu meeshiisa joogo qofkii banaankiisa joogana inuu san gelin cudurkan faafitaanka wuxuu kala mid yahay cudurkaas marka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan maadaama isbitaallo iyo dhaqaatiir nagu filan aanan lahayn ama leh adeeg loo baahnay inaan dadaalno oo alwiqaayatu khayru min al-ilaaj aan qaadano oo iska ilaalino isdhexgalka faraha badan mararka qaar waxa laga yaabaa diintii si khaldan in loo fahmo oo farxadii hal muujiyo la yiri iyo hal isbooqdadii waxa la isbooqa kara iyadoo la muujinayo talooyinkii caafimaadka in la raacayo
marka taas ayaan rabaa inaan aad u akeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ka barino oon u tawaaducno oon u dhowaano in umuuraheena uu wadi noqdo mashaakilkeena uu xalliyo talada fiican ilaahay nagu toosiyo midnimadeena ilaahay xoojiyo midnimaan wax ku noqon karnaa kuma noqon karno sida hadda xaalkeenu yahay waxaan rajaynaynaa inaan ka baxno oon ka bogsano dhibaatooyinkii na soo maray dhammaanteena waxaan isku boorinaynaa inaan ka shaqeyno sida qarankan oo dib ugu istaagi lahay isagoo midaysan isagoo caafimaad qaba isagoo isku faraxsan isagoo dulmi uusan ka jirin waxa dalkan baabi'iyay waa dulmi waa qaybsanaan iyo qof la arkay inuu isla quman yahay marka ra'yigaaga xataa hadduu kula fiican yahay inaad la wadaagtid walaalka ama walaasha waa muhiim si ugu yaraan ay u keento isfaham iyo aragti midaysan taasna waa tan diintu nafarayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kana leh wa amruhum shuuraa baynahum ay amru lmuslimiina shuuraa baynahum marka dhaqankeena inaan islaamka asaas uga dhigno oon u celinno arrintaas ilaahay uu nafarayo oo tala wadaagga ah oo tala wadaaggaas meel uusan ku koobnayn qoyska ka bilaabanaysa ilaa meesha ugu sarreysa marka shuuradu waa wax muhiima dhaqanka Soomaalidana aad uma qadariyo ra'yiga kale marka inaan uga faa'iideystaan rabaa maalintan wanaagsan iyo maalmaha wanaagsan la soo maray iyo maalmaha wanaagsan aan ku dhex jirno in aan waafajino taladeena wa amruhum shura baynahum marka lama xadidin waana mudlaq amarkaas ayan kan marka waxayna kamid tahay calaamaadka dadka muslimiinta ay mu'miniinta ah ilaahay subhanahu wa ta'ala marka aan naga dhigo kuwa acmaasha laga aqbalo oo ma taqaana yawm qiyaamaha ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u fududeeyo maxay ahaato maritaanka siraadka iyo la kulanka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo micnimadiisa wa salaamu alaykum